diban kasii wadana kolka maanta interior wallka ayaan sameynaynaa kuwan gudaha qolalka sida loo sameeyo isla eegaynaa. kolka si aan u sameyno ugu horeyn waxaan u baahannahay dimensionada inaan marka hore iska eegno. kan hadda dimensionkiisa dhankan wuxuu ka yahay 3 mitir 23 sentimitir, kan xaggana wuxuu ka yahay 2 mitir 13 sentimitir. ugu horeyn line baan soo qabsan horta kan iga tir kan shalay waxaan ku eegin keliya habka interior wallka iyo exteriorka. interior wallku habka loo sameysto maadaama xagga cabirka ay kala duwan yihiin iska dhadgalay. line baan soo qabsanayaa, line baan soo qabsaday inta nimsi u ah kasoo bilow si aan u calaamadsado bartaan gidaarka muxuu ahaa 3.23 intaas waa 3.23. xaggan kale kii gidaarkan kale xaggu kasoo waxa kan weya xaggu kasoo waxayna kan maxay 2.13 waa calaamadda bartuu gidaarku maray bartaas xagga ka maray iyo bartan baada waa calaamadda wallkay soo qaba settingiga tag xaggan inta badan 22 dhe soo qabso weliba soo qabso kadib cabirkiisa qor 2.13 tama besta kan kale cabirkiisa waa hore ka sheegtay sound sii wad sii sameysa labadan gidaar waxaa isku qaban kartaa intaas aad tiraahdo yaa kuwan kore tegaysa. hadda hal qol baan sameynay qolkii kan baan sameynay hadda kan aan sameyno kan maxay dimensionkiisu intan intuu ka yahay waan garanaynaa gidaarkan kale ma sii haystaa laakiin kolka xagga laga sugay ilaa xagga isma sugayaan wuxuu noqonayaa waa inaan gidaarka xagga ilaa xagga kasoo kacnaa xaggan ilaa xagga waa inaan kasoo kacnaa 1 mitir 46 gidaarka waa inaan xaggan saa uga soo kacnaa aan ku calaamadsan kolka line baan soo qabsan xagga uga soo kacaya 1.46 bartaas waa bartuu gidaarka dhanka ka maray bes kan kalena kan kale ku sii haystay bes wallkan soo qabso weliba line kale xaggan aan sameeyo si ugu yara si barta gidaarku mareen oo ogaado. okay bes kuwa qabtay kana saasaan ku sameeyay kan iga delete garay maadaama cabir aan ka qaadanay kana saasaan ku dhameeyay. okay kana saasaan ku dhameeyay kan baa inoo hadhay kan gidaarkan sida wuxuu yahay wuxuu noqonayaa waa wirsigiisa wuxuu noqonayaa markaa 1.37 isla kanuu soo qaadatay kuga waxaad tiraahdaa drag and move kadibna saa soo dhe hoos soo soco 1.37 markaas 1.37 metri qaybtana muxuu ahaa dhankan cabirka dhankana cabirkiisa dhankana cabirka intaasna wuxuu noqonayaa 2.17 kolka line baan ku cabiran si aan saan iskugu yara qabto
waxaan kasoo waxa gidaarku ilaa xaggaas imsuu ahaanay waa 2.14 linekii soo qabo waa ku cabiranaya wax kale ma 2.14 enter dhe gidaarku eeg xaggaas saas u soo baxaya kadibna awal soo qabo sax markaas kan saasaan ku sameynay kan iga dhaligaray labadan waa laba kala wall waa isku waa group gareyn kartaa labadooda intaad shift taabato baa group dhacaysa xaggan baa dhacaysa grouping markaas labadaasi si group isku hadda hal wall bay isku yihiin maadaama markaas qolka intan laba siyaabo samayn kartaa intaad saa usoo jiido intaad saa tiraahdo inaad tiraahdo strength kadibna aad saa u celiso goolki ama inaad ka tiraahdo ama trim waxaa la dhaho labadaa waa samayn kartaa hadda waxaan sameynay qol jikadii iyo suuligii qolkii kalaba hadhay kan baa hadhay kanna maxay weeyaan kan okay inta hadha weeyaan hadha male laakiin sida intuu yahay sida wuxuu yahay 3 mitir 2.3 sidaasna isla gidaarkan buu haystaa saasana okay isla gidaarkan uga dhib yara kana kaasoo haysta waa isku qabanayna kaas iyo kan baan isku qabanayna wax saas u weyn ma kankii soo qabo okay outside soo qabatay okay inside kaas kolka sida hadda ku sheegi karo ma sameyn kolka kan ka yarana maadaama dimensionkan ku saxaynay saasa dhihi strength taasa taabsan strength dib u yiri celi weeyaan labadoodana waa qaban kartaa kadibna waa isku xidhi kartaa okay saas okay hadda waxaan sameynay qolalkii gudaha oo kaas xagga qalbi ku jiray xagga jikadii bay ahayd xaggan suuligii buu ahaa xaggana qolkii kale xaggana hadda waxaan sameynay dhammaan intan waan sameynay way 3D waa kaanaya sidan weli waxbaa inaga dhiman weli shaqo miinaan ka qaban waa bilow wakaas kan waa maxay kan waa fadhigii kaas waa qolkii qol hurdo kana waa qol hurdo kan waa suuliga la isticmaali kana kitchenka albaabadiisa loo geliyay ka kale ayaynu ka ku xiga ku eegi doonaa